bismillaahi raxmaani raxiim wacan daawadayaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qaybtan waxaan ku eegi doonaa hadii Baraali uu ka noqdo doorka heshiiska cusub iyo waliba rajada Sacuudi Carabiya helitaanka hubka nuclear-ka ee kadib go'aanka Trump uu ka soo baxay iyo waliba walaaca siyaasiyiinta qubarada amniga waqtigan ay wajahayaan xilli Sacuudi Carabiya talaabada tani uu qaadayo in uu heli karo hubka nuclear-ka kooda ugu cusla waxaan sidoo kale isla eegi doonaa daloolka heshiiska iyo waliba ujeedada Sacuudi Carabiya waqtigan u doorbidayo in uu helo hubka nuclear-ka taasi oo la tilmaamayo iyadoo xaaladda bariga dhexe waqtigan ay u muuqato mid saameyn aad u xoogan leh iyo waliba waxaan sidoo kale isla eegi doonaa heshiiskan cusub ee Mareykanka iyo waliba Sacuudi Carabiya isla gaareen taasi oo u muuqato waqtigan in Mareykanku ay culfaysiga siyaasadeed uu aad u sii xoogeysanayo waqtigan iyadoo u muuqato in dagaalka Iran saameyn xoogan uu ku yeelan karo qodobadaasi waliba wixii nagu soo kordhayaan qubaneena ku qaadaan dhigi doona saaxiibalada kale nooc cimaamada channelka subscribe noo saara saaxiibada hore inoo la joogo noo like gareey muuqaalka like saaxiibo badan inay tusaysaa mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal Washington madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa ku wargeliyay Congress-ka dalka inuu markaas wado qorshe uu boqortooyada Sacuudi Carabiya uu kula galayo heshiis dhanka tamarta ee nuclear-ka rayidka ah kaasi oo markaasi la socda shuruudihii adka iyo waliba damaanad qaadiyadii looga hortagayay in Riyadh markaasi hormariso hubka wax markaasi gumaada ee nuclear-ka sidoo kalena wax ku cad documentary markaasi loo diray Congress oo ay markaasi aragtay wakaalada wararka Reuters talaabada tani ayaana meesha ka saaraysa siyaasadda markaasi soo jireenka ee Washington ay markaasi ku xakameyn jirtay barnaamijyada nuclear-ka ee xulufaysiga iyo waliba sidoo kale talaabooyinka adag ee waqtigan ay wajahayso madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump iyo waliba madaxweynaha isaga ka horeeyay Joe Biden ayaana markaasi labaduba boqortooyada kala shaqeynaya wadooyinkii u Google xaari lahaa dhismaha warshadii ugu horeysay ee Sacuudiga markaas u adeegsato dhalaalinta korontada nuclear-ka go'aankan ayaana ku soo aadaya xilli caalamka uu ku jiro walaac aad u xoogan oo ku aadan in markaas dib loo bilaabo loolanka hubka nuclear-ka gaar ahaan kadib markii horaantii bishan uu dhacay waqtigii heshiiskii ugu dambeeyay ee xadidna ee hubka istiraatiijiyada u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba Ruushka iyo waliba sidoo kale xukuumadda Belgium oo si xoog leh markaasi u balaarinaysa kaydka hubka nuclear-ka haddaba maxay tahay walaaca siyaasiyiinta iyo waliba qubarada amniga waqtigan ay tilmaamayaan xilli Mareykanka iyo waliba sidoo kale Sacuudigu la tilmaamayo in heshiis qarsoodi ah walibana ku dhisan habka nuclear-ka casriga ah ee markaasi ay wada gareen qubarada xakameynta hubka siyaasiyiinta in ka badan oo markaasi ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo waliba xubno sarsare oo jamhuuriga ah oo ku jira xogayaha arrimaha dibadda Marco Rubio xilligii markaasi uu ahaa senatarka ayaana si adag markaasi ugu dooday in heshiis kasta oo lala gala Riyadh uu yeelan karo xadeyn adag shuruudaha ay wada yeelan karaan ee ugu waaweyn ayaa ah koow in Sacuudiga markaasi laga mamnuuco awoodda markaasi loogu talagalay antibiotics iyo waliba uranium-ka ama dib markaasi warshadeynta shidaalka nuclear-ka kuwaas oo markaasi loo arka wadooyin markaasi fududeyn karaya saameynta hubka ee automatiga loo yaqaano oo walibana colaadaha ay si xoojin karaan labo in Sacuudigu uu aqbalo waxa loo yaqaano habka maamuuska ee dheeraadka ee waliba loo yaqaano additional protocol kaasi oo hay'adaha tamarta atomic adduunka markaasi siinaya awood balaaran oo ay markaasi ku kormeeri karaan kediska ee ugu saameynta badan ama saameyn yeelan karo xarumaha aan markaasi horey looga diiwaan gelinin dhulka u dooda xakameynta hubka Arms Control Association ayaa markaasi Khamiistii sheegay in maamulka Trump uu bishii November ee warbixin markaasi hordhaca u diray madaxda guudiyada ee markaasi Congress-ka Kelvin Davenport oo ah madaxa siyaasadda xakameynta faafinta hubka iyo waliba ACA loo yaqaano ayaana tiri warbixintu waxay kicinaysaa walaaca ee maamulka Trump uusan marnaba si taxadir leh ugu fiirsanin khatarta iyo waliba ay ku gaadaaman heshiiskan walibana tusaale xun u noqon karo gobolka markaasi ugu tagi karo dhibaato awood lehna keeni kara dhinaca kale waxaa inta badan la isla hayaa in daloolka heshiiskan ujeedada Sacuudiga waqtigan u doorbiday ay tahay in awoodiisa hubka nuclear-ka uu isagana dhankiisa ugu tijaabiyo qabi qoraalka heshiiska iskaashi oo markaasi loo yaqaano 123
arguments ayaana markaasi ka digaya in shirkad Mareykanka markaasi ay udub dhaxaad u noqon karto barnaamijka nuclear-ka Sacuudiga si markaasi loo xoojiyo ammaanka kastaba ha ahaatee dokumentigan ayaa wuxuu markaasi albaabka u furaya in Sacuudiga uu akhiir markaasi u yeesho barnaamijka loogu talagalay uraniyiinka walaacan oo ah mid markaasi salkana ku haya halka uu sanadkii 2003